بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ودكتور MB هي برنامج شبع فكر كاجا. كتاب من الرسائل من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى وحليه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. آيات waxay noo sheegaysaa in la yiraahdo إبليس inuu diiday inuu malaa'igta nebi aadam إبليس inuu u sujuudo nebi aadam markii la weydiiyey qaal ma manacak aayad kale tana maalaka la takuna maca maxaa yani uu sujuudi weysay aadam markii lagu yiraahdo markaasuu wuxuu yiri qaal lam akun li asjuda li bashar anigu ma doonay inaan u sujuudo bashar yani bani aadam oo adiga ilaahay abuurtay ma doonayo inaan u sujuudo إبليس ciqaabta ilaahay ma garasada inuu ciqaabo in dard rahma min rahmatillah in ilaga eriyo la nacalado إبليس kaliya wuxuu sameeyay inuu diiday inuu u sujuudo nabi aadam ayuu diiday yani bashar inuu u sujuudo ayuu iska diiday لأن تارك الصلاة qofka taariku salaadka salaada aan dukan wuxuu iska diiday isagana rabbi aadam inuu u sujuudo ayuu iska diiday yani si kale hadii la yiraahdo qofka taariku salaadka wuxuu iska diiday inuu u sujuudo rabbi العالمين yani rabbi المخلوقات ورب الدنيا والآخرة ayuu iska diiday inuu u sujuudo يعني diidista oo إبليس muu diidin inuu u sujuudo ilaahay muu diidin yani inuu u sujuudo wuu ictiraafsan yahay wuuna doonayaa inuu ilaahay u sujuudo ma garanaysaa laakiin kaliya wuxuu iska diiday inuu ibn aadam bashar qaala lam inuu bashar u sujuudo ayuu iska diiday taariku salaa wuxuu iska diiday inuu ilaahay u sujuudo ayuu iska diiday ma garanaysaa sidaa daraadeed qofka aan salaada dukan waa muhiim waa kamid shanta tiir islaamka ay kamid tahay qofkii dukadana waxa fiican isku dayo si hagaagsan oo qurux badan oo khushuuc ah inuu dukado ma garanaysaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.